السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا لي رجست سو ناخذ وناكسن مقعيبا نبدأ عند استاذ محمد يوتيوب جنال كمان ونبدأ عند استاذ محمد مركليو سو ناخذ وناكسن أنتان دن بان سوشيال ميديا كما قناي وإنكرال قلنا متى كلا إبل أنا هبين فيديو مدوجن فيديو وحدوه عاودوه كل يسون قدون موجي هدو في عنا يهدو حماده بان أركنا عاو فيديو إن فيديو دو تجهبه إيجته مرجعيس فيديو أساسا نموذج حارب أنا سمي برنامج ما يعني حارب أنا كهذا برنامج ير أنا دو مرمين فيديو ما عاو حارب أنا وحرس لاركنو سوشيال ميديا أنت وحي لا إذا دو وريجا مالله وحساس أبدا ما فيديو وايده لكن مهمته حبرسين زايدة حصل عربنا وأنا سيب درأي أيام دروين إن صومالي أو أحد المسلم تدك أنتي سبضنا أهيستان دين الإسلام كمركز لقربه يير ودبد كفر لاجودي إن برلمان كله هرجيو شرع لو ما عاب شرع جنسية كاس أو قلاني نوع ولي أو قلماء أو غير شرعه كاس أو كسر جيد الدين الإسلام كا وحيابها الله ياب كمدن سواح أي تاي إن شرع جاني أي سوق بسي وزارة هوينك إي أرمها قوسك إنك أوج سبحانك يا إله سبحانك يا إله سبحانك يا إله إن دمر يعهور فربضاني أي وجهيان كفس فربان سؤال إسويدين تمدن وتعالى وحيهد يا كدم بكفس جان يا سدي رجليا وحاس شكل عن عدين وياه وزارة أرمها هوينك يخوزك أب أريتاس تهجيروس أب قرب سينوس أب سوق بينوس أيها سؤالي sharcigan in la baas gareeyo ama baas gareyn loo raadiyo oo qarash ay ku bixiyaan dawladda shisheeye in ay dabada ka wadeen kufsiyadii horaan dhici jiray haddana dhacaya maxaa yeelay sharcigan wuxuu ogolaanayaa nooc waliba oo galmo ah oo aan sharci ku ahayn diinta islaamka gabi ahaanba waxa uu meesha ka saarayaa waxa lagu magacaabo zinada oo diinta islaamka xaraam ku ah labada qof ee isla ogol inay galmo sameeyaan in isu malaha wasaaradda haweenka oo laga reebo haweenkii kufsi loo geysto dhibaato loo geysto wax walba loo geysto iyada inay ka hadasho loogu talgalay aaba barnaamijkan wadataba aaba dhahosaba labada isku jinsi ah iyo labada aan isku jinsi ahaynba wadahaas la maraa camal macnaha hal meel ha kasoo jeestaa camal hal garab ha soo fuulaan camal subxaanaka yaa ilaah waa meeshii laga rabay halkii cod ay haysteen oo ku lahaayeen madaxdan halka cod ay ku lahaayeen waxaa waaye dowladda federaalka halkiina saasay ku ciyaareen hadda Soomaaliya aad ay u xumaatay sababtoo ah xalay waxa magaalka soo galay wiil 10 jir ah in la kufsaday isbuuc horan waxa ku jiray gabar in 6 qof loo kufsaday ya ilaahi waxaas wax aad loogu xumaado waay Soomaaliya intay dhibaatooyinkan iyo musiibooyinkan yar ka dhacayso inay horumar gaarto lagama yaabo intay dhibaatadan ku jirto maaho Soomaaliya waxaan leeyahay dadkan qasoo Ilaahay ka qabto guys maanta videogan inta soo gabeena anigoo hadalka idin ku dheerin kaliya caawa waxa inta soo fadhiistay inaan muuqayga idin tuso barnaamij badan soo wada waana isla soconayna waana isla shaqeynayna khayr badan